waxa aan tarxina inaan soo dul qaadanayn magaalada gudaheedaan soo galinaa bay dhaheen haddaan laga saarin ciidamada idoor magaalada haddaan laga saarin waxa weeye magaalada waa soo galinaa ilaa 500 oo tignika ayay wataan waa dhulbahanti cid walba leh heer walba leh hanjabaada si soo diray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدبان إدي سلامة يا أمد الصوماليين ميل كسته واسطو سعاوة يقدعون يسيد هل كان وهذا اللايف يقدعون سعاوة وكارة دورارك فنوغان ميديا وحمركن استوديوها فردية وسطو سيديها اللي أنا وهوري عباس مداري رتب حانيد كأصنا أيام وقال كان برامج كان إناد سيشر جريسان saaxiibadana isla markaas aad la wadaagtaan dhanka YouTube sidoo kale madani official inaad booqataan isla markaasna aad subscribe siisaan ana mid noqotaan dadka ku dhow 20,000 ee nagu xiran waa tahay barnaamijkan hadaba waxaynu ku qaada dhigi doonaa hadii Rabbi idmo insha Allah taala wararkii ugu dambeeyay ee xarunta gobolka Sool oo maalmahan xaaladeedu ay aad u kacsan tahay isla markaasna aan runtii muuqaalkii ka horeeyay aan idii baahiyay in magaalada Laascaanood ay foolanayso waxay foolan doontana aan la ogeyn dabcan resultiga iyo waxay foolateena dhammaan ummadda Soomaaliyeed way wada hayaan waa tahay aan ku hormar wararkii ugu dambeeyay updating kan idinka dabageeyay rabaan insha Allah taala waxay dhawaan markii magaalada Laascaanood laga qabtay dad dhalinyaro ah rag iyo dumar bare oo markaas la geeyay magaalada Berbera iyo Madheera halkaas oo dadkaasi ay ku xunayeen muddo ugu dambeeyay dadkaas waxa lagu haystay fidinta muujinta aragtidooda Soomaali weyn iyo calankii awiyashood ay nafta u soo hureen runtii dadkii xidhay ama horgaladii xidhay ama maleeshiyaadka jabhadda Israabi kolkii ay soo xidhanayeen dadka daraawishta waxay u haysteen oo ay moodayeen inaan dadkan indadalin inaan loo kici karin in aan ummaddu aysan daroontona aysan lahayn laakiin waa ilaahay mahadi ilaahay waa maadaas kale magaalada Laascaanood waa gilgilantay shacabkii waa kaceen waxgaradkii waa kaceen siyaasiyiintii waa kaceen waxa weeye hadii alla ku nin walba qorigiisu diyaar gareystay nin walba qorigiisa ayuu diyaar gareystay hadii alla ku waro yahay wuxuu go'aan ku gaaray in halka uu joogo xabadiisa uu ka rido oo ka bilaabo ilaa mudug ayaa laga hadlay ilaa Laascaanood buuhoodle ilaa dalka dibadiisa meel walba maanta arrinta ugu midoobay meel buu arrintaasi ka soo meel buu arrintaasi ka weystaagay waxaa runtii mudan in la xuso kulkii la arkay odayaashii iyo dhaqankii iyo bulshadii reer Laascaanood inay jaanta isla xireen oo ay midoobeen isna raaceen ayaa nimankii fulday waxa weeye meesha jabhadka firdadkii ay la fahdo baqeen isla markiiba dadkii xunaa waa la sii daayay intii Berbera ku xuneed daha laga qaad albaabka laga furxay war kuwan ma haysan karnaa war hada xaalad kale ku suganaay waa la sii daayay shuruud la'aan ayaa lagu sii daayay waxa ay sheegayeen qaar ka mid ah dadkaasi la xiriiray iyagoo calankoodu wata ayay Berbera ka soo baxeen calankii Soomaaliya iyagoo wata shuruud la'aan ayaa lagu soo daayay waa guul ilaahana ma hadaas kale maanta waxa hadlay dad badan dhawaqo meel walba waa gaaray dhulbaahantana dagaal buu diyaar garoobay hadii dadka xoran la sii daayay hadii kaleba dhulbaahanta dagaal buu diyaar garoobay dagaal buu garaacay cidda uu la galayna waa beesha idoor maamulka maleeshiyaadka jabhadda Isana wixii dhul raaca u ahaa ma horgala dagaal ballaaran oo daba dheeraada ay galayeen insha Allah taala xaqiiq weey qolihii Laascaanood joogay ee qaarna horgalada hayeen qaarna Isana bahayeen lafahoodii bay u baqeen waxa wararka la sheegay maanta caawa makhribadii waxay sameeyeen odayaal bay isugu yeedheen odayaashaasi qayb kamid ah waa odayaashii maalintii hadlay hanjabay waxay dhaheen laaluush baan bixinaynaa xaaladda waa dajinaynaa afayeenkii beelaha daaroodna waa soo deynaynaa
bal xaaladda banaanbaxyada ku dhawaaqday inay kacdoonkii bulshada inaga daayo. odaybaa u hadlay wuxuu yidhi cabdikariin cali nuur banaanka ma yahay. taasuu hadalka u dhigay cabdikariin cali nuur afhayeenkii beelaha daarood banaanka ma yahay. jawaabtu waa maya. inta cabdikariin uu xabsiga ku jiro waxa weeye xabadda waaridana waana dagaalamanaa, cidda aanu kaga bilaabanana waa idinka weeye. saanaga cid kaloo idooraya, cid kaloo howlgallaa oo noo dhow aan maanta haddii alla ku noo dhow haba yaraatee ma jirto. ciddaanu kaga bilaabano waa idinka weeye. dhawaqaa isqabsaday oo warsaas xaaladda maana wadin, warkadaa warka maogta. maanta waxay maraysaa baryo in las baryo, in waxa weeye haddii alla kuran yahay ummadii kacday ee dareenkooda muujiyay meesha waa lagu kala kacay, waa la isku fahmi waayey. hawshuuna halkeedii bay kasii socotaa. nimankiina cabsi baa soo food saartay runtii. sidoo kale waxaa lai sheegayaa ciidamadii dhulbahante waxa weeye mushaharka kaga caagleyn jiray SNM warar baa iyana kasoo baxay. qaarkood qoraalay qoreen, qoraalay soo saareen. qoraalada waxaa runtii ay ku xuseen in ciidamada laascaanood la keenay door iskoosyada STG-da iyo iskoosyada goolada iyo royal iyo wadada xabaalaha iyo haddii aan la go dhakhtarka weyn iyo tabisha casba waxa weeye taagan isaaqa khaliga ee shacabka baaranaya ilaa luushka qaadanaya gawaarey istaagsan door waxa aan cid tarxina inaan soo dul qaadanay. magaalada gudaheedaan soo gelinaa bay dhaheen. haddaan laga saarin ciidamada idoor magaalada, haddaan laga saarin waxa weeye magaalada waa soo gelinaa. ilaa 500 oo tignika ayay wataan. waa dhulbahante cid walba leh, reer walba leh. hanjabaadaas ay soo direen. waxay si toos ah ula xiriireen gacan ku dhiiglaha ina taani nuux baasto. iyagiina hawshood halkaasi maraysaa. dhiigu biyo maaha, dhiigu biyo maaha. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. meelaan doonin rabna meenugu hela sidaan doonaynay inay arkaan dulmiga dadkooda iyo shacabkooda iyo ummadooda lagu hayo. xaqiiq baan idiin sheegaya, caawa gawaariday wada saaran yihiin ciidamada dhulbahante ee mushaharka ka qaadan jiray SNM. waxay sheegeen waxa weeye haddii alla kuuron yahay yeeli mayno, u dulqaadan mayno annagoo intaasoo tiknika ah, intaasoo ciidan ah, intaasoo raga haddii alla kuuron yahay deegaanka ku leh in maatadeedii maxaysteedii iyo caruurteedii nala damaro oo idoor noo damaro oo annagoo aanan ogeyn waxa weye haddii alla kuuron la geeyo madheera iyo berbera. aad bay igu xanaaqeen, aad bay igu yoqsoodeen. xaaladuna meel adag bay maray. haddii ciidamadaasi laga saari waayo isaaq iskuusyada la geeyey magaalada cabsida soo food saartay, laascaanood waa lagu kala guuraya. runtii iyagaa soo galaya magaalada way ka dhexdhacaysaa. nimanka ciidankaasna shacabkuna waa taageeraya, waana la shaqeynayaan. magaalada si toosayna xabadda uga ridayaan. baasho alamtaro waa soo dhaaftay. waxaan rabaa inaan ragga ciidamada wata ina cabaasho leh, ee faarax xaashin leh, ina ducaal dheeg leh, ee cabdidheere leh, haddii alla kuuroy dhammaan ragga aan carabaabay iyo kuwo badan oo markaas dhulbaanto ciidama haystaba. waxaan rabaa inaan arrin u sheego. waxaan rabaa inaan fariin u diro. ilmaadareyaalow dhulbahantaa tihiin. waxaa la laynayo ee la xidhayo ee maxaystiisii iyo dumarkiisii iyo caruurtiisiiba loo gacan dhaafayo waa idinka wey. waa idinka wey. haddaad maanta ku fiirisataan oo aad ku daawataan dad idinka yar oo haddii alla kuuron yahay idinka hubyan oo idinka ciidan yar, dullinimo meeshii idinku dambeysay ayay haddii alla kuuron yahay idin hadheynaysaan. ciidamada hadda aad hogaamiyaha u tihiin wallaahi hogaamiyayaal si ahaamaysaan. waa kala goosanayaan, waadna ku kala baxaysaan. idinkaa isku nacaya, idinkaana ku kala tegaya. sharaf daro iyo cisi darray idinku tahay in magaaladiini laydii gacan dhaafo, shacabkiina laydii gacan dhaafo. niman militariya oo idoor soocanana maxaystiini maatadiina idii gacan dhaafto. maanta
waxaa la caano qubtay baa la dabadeed la qabay. maanta taladu gacanteena ku jirta. shacabkiina idinkaana gubayn kara, idinkaana guul u horseedi kara inaad awoodina muujisaan, awoodina ciidan inaad muujisaan oo intaad magaalada soo gashaan, magaaladiina weeye tiknikada la soo gashaan, iska sooba waxa way tirifidana wada dhigataan. haddii ka bixi waayana halka ka wada calaamadeysaan. ma dhulkiini magaaladiina ma wiilal yar oo idoora ayay haddii la ku ragay idinku cashuurayaan oo idinku maamulayaan. miyadan damiir naxayo dhulbahantanimo xitaa siyaasadda ku midoobinaba, laakiin tii dhulbahantanimada lahayn. anigu ninka damiirka dhulbahantanimadu ay ku weyn tahay anigu waa taageersana, waana soo dhaweynaya. waa in laydinka helaa ugu yaraan kuwa diirkooda iyo damiirkooda naxayo. iyaga intaasaa leeyahay. rag badan baa hadlay oo runtii isima leh, waxgarad leh, siyaasiyiin leh. aad baan uga mahadnaqayaa raggii mudug ka hadlay, gobolka mudug, kuwii dalka dibadiisa ka hadlay, kuwa dalka gudihiisa ka hadlay. haddii aan la kurin odayaashii iyaguna hadlay, laascanood ka hadlay, hanjabay, cadeeyey mowqifkooda iyo qadiyadooda. aad baan ugu mahadnaqayaa. sidoo kale waxaan ugu mahadnaqayaa garaad jaamac, garaad ismaaciil ducaale oo isaguna runta arrintaas si adag uga hadlay. inkastoo garaadku intii dambe uu qolyahayaga facebookyada ka hadla uu dhaleecayay, laakiin waa garaadkaygii. waxaan ku ilaaweynaa intaa hore wanaagsan ee bulshadu ay sugaysay ee uu carabaabay ayaan wax walba ku ilaaweynaa garaad. haddii rabbi idmo ragga kale odayaasha hadleen waxaa leeyahay hambaliyo ragga culimada leh ee dhaqanka leh ee siyaasiyiinta leh ee haddii alla ku roonyahay aan hadlin ee baritan bulshada magac ka soo raadsanaya iyo mansab iyo manafac. taariikhdu waa idin xustay. rag badan oo aan islahaa way hadlayaan, aan islahaa ku dhiirasho leeyihiin, waa ceeboobeen. ceeb baana ka raacday. muraayada samuuradaas aad ku wada qorantihiin, social medias aad wada taalaan. ragga qaar xitaa la carabaabay oo si gaara loo carabaabay ayaa jirtay. 8 nin baan u carabaabay aan ku yiri hadla. 8 nin aan ku yiri hadla aan si gaar u carabaabay. ninka afayeenka beelaha daarood Cabdirashiid ee hadda xiran ayaa ugu dhawaay, isaguna habeenku rabay aanu ku balansanay inuu warbaahinta la hadlo. makhribadeedii baa haddii la ku royay la xiray. arrintu halka kuma istaagayso, way soconaysaa. amiirkeeni baa xiran, afayeenkeeni baa xiran. insha Allah taala isaguna si shuruud la'aan ayaa lagu soo deeraya haddii Rabbi idmo. laakiin hawsha iyo kacdoonka iyo revolutionka shacabka reer Laascaanood ee socda waxaan idinka codsanayaa inaad taageertaan. dadnimadiina iyo sharaftiina iyo karaamadiina maanta waad guulaysateen. awoodinaad muujiseen. waxaa tiimbaad muujiseen. waxaa idooriyahayaad muujiseen. inaydan halganka ku joojo. aydan halganka uusan noqon kaliya qof baa la xidhaan u kaano kaliya maaha. goolkeenu waxa weeye waa magaalada Laascaanood inaynu ka saarno idoor inta yare haraadiga ay joogta. goolkeenu kaas weeye. waddo kasta oo aan u marayno, meel kasta ha ahaatee, waddo kasta aan u mari karno oo marayna. meel kasta oo taasi anaga gashana waa haddii alla ku reeyay waa sameynayna. ugu dambeyntii fariin waxaan u diray bulshada reer SSC, fariin waxaan u diray maamulka idoor iyo maleeshiyadka jabhadda aysan. waxaan leeyahay waa idinka dhamaatay intii aad Laascaanood ku nagaadi karteen. waa idinka dhamaatay intaad bulshada kala qaybin karteen. waa idinka dhamaatay intaad horgal noo soo adeegsan jirteen. waa idinka dhamaatay intaad masdac iyo masabba ummadan u kala turtuuri jirteen. waa idinka dhamaatay xilligii ummadan cadquursi loo kala tuur jiray. waa idinka dhamaatay xilligii dhulbahanta jifa loo kala qaybinayay. meeshii ugu dambeysay idinka maraas. intaan hadiyada wadaan ee hubka ee ciidanka, intaan hadiyada la dhaxalin waan si toos loola wareegin oo idinkoo waxa weeye haddii la ku maryaha la idinka furtayo waxa weeye qaaqaawan aydan waxa weeye warbaahinta la idin soo horfarsin
ka kulaala ka urursada alaabtiina iyo qalabkiina isaga baxa magaalada. waa digniin weeye, waa isaga baxa magaalada. waa intaan cidida ka dhiman, intaan khasaarida soo gaarin, inta hubkiina la furan, intaan haddii alla ku roogay haddii baqdarka leeyahay aan dhibaato idin soo gaarin, isaga kulaala. haddii se taa qaadan weydaan maray ka xun tahay baa imaan doonta. haddii alla ku roogay aad yeeli doontaan danin badina ay noqon doonta insha Allah tacaala. ku khasbanaan doontaan in haddii alla ku roogay tirahdaan walaalayaalow kaa keliya noo sii daaya, walaalayaalow nafteeda keliya anagoo nool oo waxba aan wadan nafteeda keliya noo amaan siiye baa imaan doonta. bulshada reer SSC waxaan leeyahay reer Khaatumo hawsha wadaan insha Allah tacaala. waa intii ugu dambeysay biyo raacintii weeye insha Allah tacaala. inaad hawshan dhaqaale ku bixisaan, waad maal ku bixisaan, waad waqti ku bixisaan. waxaan u baahanahay wan qof oo cabaas oo kalaa oo afnugaal oo kalaa oo hadla insha Allah tacaala, oo sideeda kale u ololeysa, hadla waqti badan iyo juhdi badan hawshan sidaan u gelinay u gelisa. aniga qofkii doonayay hadli karaa ee raba inuu halgankan bartiisa ka qabsado insha Allah tacaala wixii barnaamijya iyo wixii uu u baahan yahay arrimahan social media aniga ka caawinaya si toos ah la soo xiriir. laakiin bashruud inuu yahay qof sida Cabaas oo kale qadiyadu ka go'anta, xishood ma laha. dad badan waxaan arkaa dhulbahantanimada ka xishoonayay qadiyada inay ka hadlaan social media, qadiyada inay social media ka hadlaan. ha ka xishoon, dadkaagii weeye. haddaad ka xishootid waxa weeye maanta qabiilku xishood ma laha. qabiilku waa qabyaalada xun, laakiin qabiilku wala tacaarafu. ha ka xishoon, hana cabsanina. waxa weeye aniga si toos ah la soo xiriira. sidoo kale waxaan rabaa inaan bulshada ku booriyo inay hawshan dhaqaale ku bixiyaan, oo ay maalkooda iyo waqtigooda ay hawshan ku bixiyaan. waayo waa wax aynu doonano inaynu dhaxalka ubadkeena waxa weeye aynu ku ilaashano insha Allah tacaala. waan rajeynayaa baaqaasna in bulshada reer SSC reer Khaatumo uu gaaro. cid kasta u baahan hawshan iyo qadiyadan socota inay qayb ka noqotana runtii hayla soo xiriidho oo numberkan afnugaal media hayla soo xiriidho insha Allah tacaala. intaan ayla soo xiriirina referencegeeda iyo qofka uu yahay insha Allah tacaala ha iska soo hormariyo. aad iyo aad baad mahadsantihiin. guuleysta ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer SSC insha Allah waa guuleysanay, waana guuleysan doona haddii Rabbi idmo insha Allah tacaala. dareen fiican iyo farxad baan anigu runtii muujinayaa. sharaf bay noo tahay maanta, sharaf iyo karaam bay noo tahay maanta in dhulbahanta xabadda meel ugu wada ridayo, isku qadiyad iyo isku mowqif yahay. waxa weeye cadquursi iyo horgalla inaanuusan maanta ku faanayn, uusan taageerayn. simple that qofka uu taageerayo ama qadiyadda uu taageerayn ay tahay ta dhulbahante ee xalaasha ee baraxa ee miskaas ah insha Allah tacaala. aad iyo aad baad mahadsantihiin. guul iyo gobonimo insha Allah tacaala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.